maxkamadda gobolka Sanaag ayaa saaka ansixisay isla markaana dhaarisay 13 xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada Ceelgaabo. waxaan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan daacad u ahay diinta Islaamka iyo dalkayga Soomaaliland. waxaan kale oo aan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa inaan cadaalad ku maamulayo dadkayga. Daarinta iyo ansixinta kadibna waxay cod gacantaaga ku doorteen in uu maayir u noqdo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ka soo baxay xisbiga wadani isla markaasina 12 cod ka helay golaha. halka ku xigeen loo doortay Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed oo ka soo baxay xisbiga Ucud isla markaana helay 12 cod. waxa halka ay noogu dhamaaday doorashadii oo maayirkii degmadu mar labaad anigu inta joogay mar labaad oo Ismaaciil noqday iyo gudoomiye ku xigeenkii oo ah ninka la yiraahdo isaguna Cabdiraxmaan Maxamuud mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa golaha deegaanka cusub oo iga codaysay 12 xubnood mahad ballaarin baan u jeedinayaa labada kalena waa u mahadnaqayaa laftooda waxaan leeyahay golaha hawl baa inoo taalla hawla waa la soo qabtay madaxweynaha qarankana doorashadii uu ku guuleystay ee uu isagu hirgeliyay midnaanteeda koowaad noqlahaana aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaadka shacbi weynihiina soo doortay hadaan nahay anigoo afka golaha deegaanka dhamaantood xildhibaanada halkan fadhiyo kuwada metelayna aniga iyo gudoomiyuba aad baan ugu mahadnaqaynaa mana nihiin kuwii soo doortay kuwa xildhibaano oo ah gudoomiye gaarana oo ah dhammaan shacbiga iyo degmada Ceelgaabo waxaan u nahay gudoonka degmada Ceelgaabo iyo inta ka bacdi waxay la tahay waa la tartamayo anigu hadii laga helay waa u mahad celinaya waana la shaqeynayaa maayirka wassalaamu salaankeed dib waxaan u hambalyeeynaa doorashada dhacday ee sida cadaaladda ku dhacday ee lanaga guuleystay horta waxaan hambalyeeynaa maayirkii waxa soo noqday maayirka rugcadaagee hore waxaan leeyahay Ismaaciil xilku waa imtixaan way noognahay waa la isku imtixaamaa dabadna qofka waa lagu eegayaa كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته مع النبي عليه الصلاة والسلام قف والبا وحوا هيو ولا قول حساب تمايا ما أنت وحنوم ملاينا يا وحيت هاي قول تاريخي إنه نقارني إن قوله إنه عصبة وفريستي عدي مركا أي دونيين إنه يهجان كوقبتنا أي دورتين كنت مر لبعض يا مر صدحات بقولها وأنو جم هاد علم النارنكا قولها وحوي ما أنت حول بقى برابطي hawsha u bilaabatay waxa weeyaan mas'uuliyadii la saaray ee dadku fartooda iyo codkooda ay ku siiyeen biyaheedii baa laga doonayaa iyo madaxeedii in waxay ka qaban lahaayeen ay u diyaar garoobaan oo guntiga dhiisha isaga dhigaan baa looga baahan yahay waxaan aad u hambalyeeynaya golaha deegaanka ee qolada soo baxday oo runtii aad u amaanan oo ugu amaanan inay soo doortaan odaygii ugu weynaa aad iyo aad baa reer Ceelgaabo u mahadsan yihiin oo ay xildhibaanadaas ay soo doorteen xildhibaanaduna waa mahadsan yihiin oo maanta waajibaadkooda dastuuriga ah ayay galeen marka maanta halka wax kale ma yaaliin waa duco Suldaan Ismaaciil Axmed Maxamuud telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Ceelgaabo.